الرحيم sida rag iga horeeyba ay sheegeen waa isbarashiyo soo dhaweynuun hadalkiina uu inoo dambeeyaa waxay la tahay waa ugub in madaxweynaha iyo labadii shir guddoon iyo 10 xubnood oo guurtida ah iyo 10 xubnood in ka badan oo wasiir ah iyo xildhibaano kale in dhammaan intaas diyaarad qura soo wada raacdo waa arrin uguba laakiin waxaa looga tashado taa loo yeelay marka hore maantana waa sheegay waa qadarin gobolka Sanaaga hadday baaxadiisa tahay iyo dadkiisa iyo qiimaha uu Soomaaliland ku joogo Soomaaliland waa go'aan ay u dhamayd in maanta la xoojiyo haddii Sanaag la tagaayo in aan loo baahan hebel baa dambeeyay iyo xafiis baa dambeeyay iyo cid baa dambeysay in aan loo baahan waxa kale oo la sii xoojiyay shirka warsangeli markii la yiri waa isu dhanyihiin warsangeli oo maanta wixii hadala ama isafgaran waaya ama madooda dhexdeeda jira waa la dhameyn karaya oo waa la isu dhan yahay xaqaana waxa laga soo dhabaaday dawladdu inay iyadoo dhan timaado qiimaha iyo qadarinta shirka iyo gobolka nooleeyahay waa ka aynu ku nimid ilaahay idankiina wanaag baynu ku dhamaysan doonaa iyo wixii turxaana in la saaro inkastoo la soo koobayo haddana waxa la yidhi odayaasha waaweyn guddi baa ka haraysa inta kale way tagaan guddi baa la idin saaray haraysa dee markaa haddii marnin garboodkii reerku beesha halka wada joogto hal eray oo aragtida aan ku socono ah iyo aragtida Soomaaliland dawladda ku fadhida oo baan doonayaa inaan cadeeyo horena mara waa loo ogaay aragtida ku soconaa waxa weeye Soomaaliland sida dastuurkeedu qorayo iskuna wada raacsan tahay aan filayo inaga kala maqnaan isku raacanahay waxa weeye wixii aynu la galaya arina ama heshiisa ama dastuur ama xeera waxa uu asal diinta islaamka islaamka waxa la taawaa ku heshiisan dastuurka qodobkiisa boqortooyada uu qorayaa mabaadidiisa hordhacuna uu qorayaa waliba waxa inta dheer qodobkaasi inuu leeyahay marka waxa dastuurka hadii wax laga bedelayo ama wax lagu daraayo inuu mabaadida islaamku asal u tahay lamana bedeli karo lamana taaban karo saas ay ahaanaysa wariyaali marka cid kasta oo hadlayna wax laga tanaa koowno talabaad ee halka iyadana la siman ee dastuurka hore dhiciisa iyo aakhirkiisa oo qorayaana waa to aanan cid isku diideyn oo ah Soomaaliland dadka waxa lagu hadlayaa isugu imanaysa go'aan qaadasho wadareed oo talawada lagu gaaray ee ma jiro cid iyo qof talo u doona gaari kara Soomaaliland oo dhan labada qodob haddaan halkaa ka cadeeyo oo aan jecelahay inaynu wada dhageysano haddaynu odayaasha nahay nin waliba meel tegi doono oo maxaa halkee laga bilaabaya horta dadku maxaa ka dhexeeya ku heshiin karaya horta labada qodob baa inoo asaasa qodob kala jira oo jecel odayaasha inay sii faro oo aan iyagana cadeeyo halka laga taagay Soomaaliland waxa weeye dad badan marka la yiraahdo Soomaaliland ha wada heshiis Soomaaliland ma la simanaya iyo waxba kala maqan horta Soomaaliland waa intii Ingiriisku xukumayay haddii la yiraahdo markii laga talayay Soomaaliland intii Ingiriisku haystay iyo inihii ka horeysayna yaa ugu miisaan weynaa talada ama ugu hawl badana haddii la isweydiiyana ninka sheegan maayo balse beeshan waxyaalaha loo soo culisay waxa kamid ah waa beeshii dawladdii Ingiriisku suldaankeedii 9 sanadood oo xabsi mustaafurisa dalka ka xidhay isagoo halgan ugu jira xorriyad وتاريخي لبا بيش ورسقلي مركي قبنimada la doonayay ee isticmaalku inuu taga la doonayayna
ciddii loo diray waftigii boqoradda ka socday ee cadan lagula kulmay salaadiintii la tegey iyo waxgaradkii la socdayna hadalkii somalilan xorriyaddaanu doonaynaa oo waxaasaanu yeelaynaa oo dalkaygaa maqan ciddii loo dhiibay ee ingiriis oo xorri baanu kaa doonaynaa cadan bilowgeedii loogu dhiibana dee warsangeli ba haydona suldaan maxamed cali shiro markii xorriyadda la qaadanayay habeenkii markii calanka la saarayay kala bedelayeyna suldaankii qurahaayena cigaal iyo qolada markii jeeda suldaanuhu soo kaclaynay la joogay in calanka la saaro oo kale la bedelo dee cabdisalaanoo markaa bris uu ahaayo oo walaalkii suldaan yuu soo gmadayoo suldaan cabdisalaan baa habeenkaana joogay markii dee calanka la saaray hoos taagnaa wax ka saaray suldaan siciid aabihi waxaa laga yaabaa intaa anigu aan dhegta ka maqlay in badan oo goobjooga had inaad idinka joogto ama iga xoogaansan sababahaan uu soo culaysana waxaa kamid ah beesha intaa leh aynaan muddadaa wada hadal somaliland kale waxa weeye waxaanu leenahay war dee halkii aad hoggaankeeda hayseen taladeediina waa la idin sugayay intaas imikana waa la sugaya maxaa qaldananu saxnaa waa inoo taalo qodobkan raacinaya waxa weeye inagoo somaliland ah oo qoladii aada suldaanku hogaaminaya oo xorriyaddii ingiriis ka qaadanay iyo iyaga oo koonfuraynu isu tagnay shuruud la-aana inagoo ore waqooyiga oo soomaali waa doonina u saban waynu tagnay 30 sano markaynu joognana way naga duntay burcana waxaynu ku goosanay qolo waliba hay soo dhisto oo halkeedu ku noqdo dabeetana aan wada hadalno hadduu aqalkii hore hadduu inaga xumaaday dhismihiisa qodobka la isku hayaa waxa weeye waa 60 kii inagoo laba dowladood soo nimid way naga duntay nin waliba halkiisii dowladda ka soo dhigo inagoo 26 kii siman aynu wada hadal oo laba dowladood walaaltinimadu aynkaas wax noogu dhismayaan laakiin adoo ay dafirsanba dee ma noqonayso waana nagu dhammayn maalintaana burco oo sheekh axmed iyo salaadiin badan baa dee joogto oo maanta noo maahmaahay sheekh axmed marka intaasi waxa iga ahayd wargelin sababahan u soo culaysanay halkan eenu u doonayna inaan kaalintiinnii hadday somaliland tahay iyo hadday mustaqbal tahay baa ka tarisaan waana bismi illaahi raxmaan iraxiim sida rag iga horeeyba ay sheegeen waa isbarashiyo soo dhaweynuun hadalkiina wuu inoo dambeeyaa waxayla tahay waa ugub in madaxweynaha iyo labadii shir guddoon iyo 10 xubnood oo guurtida ah iyo 10 xubnood in ka badan oo wasiirra ah iyo xildhibaano kale in dhammaan intaas diyaarad qura soo wada raacdo waa arrin uguba laakiin waxaa looga tashado taa loo yeelay marka hore maantana waa sheegay waa qadarin gobolka sanaaga hadday baaxadiisa tahay iyo dadkiisa iyo qiimaha uu somaliland ku joogo somalilandna waa go-aan ay u dhammayd in maanta la xoojiyo haddii sanaag la tegaayo inaan loo baahanin hebel baa dambeeyey iyo xafiis baa dambeeyey iyo cid baa dambaysa inaan loo baahanin waxaa kaloo lasii xoojiyey shirka warsangeli markii la yidhi waa isu dhan yihiin warsangeli oo maanta wixii hadala ama isafgaran waaya ama madmada dhexdeeda jira waa la dhammayn karaya oo waa la isu dhan yahay xaggaana waxa laga soo dhammaaday dowladdu inay iyadoo dhan timaado qiimaha iyo qadarinta shirka iyo gobolkuba noo leeyahay waa kaa aynu ku nimid ilaahay idankiina wanaag baynu ku dhammaysan doonaa iyo wixii turxaana in la saaro inkastoo la soo koobayo haddana waxaa la yidhaha odayaasha waaweyn guddi baa ka hadhaysa inta kale way tageen guddi baa laydin saaray ee hadhaysa dee markaa haddii marnin garboodkii reerku beesha halka wada joogto hal erey oo aragtida aanu ku soconno ah iyo aragtida somaliland dowladdeeda ku fadhida baan doonayaa inaan caddeeyo horena mala waa loo ogaay aragtida aanu ku soconnaa waxa weeye somaliland sidaa dastuurkeedu qorayo iskuna wada raacsan tahay aan filaayo innaga kala maqneen isku raacannahay waxa weeye wixii aynu la gelaya arina ama heshiisa ama dastuura ama xeera waxa uu asala diinta islaamka diinta islaamka waxaa tahay taa waa ku heshiisan
dastuurka qodobkiisa 130 wuu qorayaa mabaadidiisa hordhacuna wuu qorayaa waliba waxa intaa dheer qodobkaasi inuu leeyahay marka wax dastuurka haddii wax laga bedelayo ama wax lagu daraayo inuu mabaadida islaamku asal u tahay lamana bedeli karo lamana taaban karo saas ay ahaanaysa warigeena